Assalaamu calaykum. Waxaa jiray nin oday ah wuxuu caan ku ahaa waayo-aragnimo iyo xikmad. Maalin maalmaha ka mid ah waxa uu yimid nin dhalinyaro ah oo doonaya inuu wax ka barto sida loo guulaysto nolosha. Ninkii dhalinyarada ahaa wuxuu odaygii weydiiyey sideen ku gaari karaa guul iyo horumar noloshayda. Odaygii ayaa ku jawaabay, wiilkaygiiyow, sheeko gaaban ayaan kuu sheegi doonaa oo aad ka dhex arki karto sida nolosha guul loo gaaro. Waxaa jiray wiil yar wuxuu jeclaa inuu noqdo farshaxan, laakiin mar waliba wuxuu ka baqi jiray inuu bilaabo sawirkiisii ugu horeeyay. Mar waliba wuxuu dhihi jiray, waxaan u malaynayaa inaan ku fiicneen farshaxanka. Maalin maalmaha ka mid ah wiilkii yaraa wuxuu la kulmay nin waayeel ah oo ahaa farshaxan caalami. Wiilkii yaraa ninkii waayeelka ah wuxuu weydiiyey, sideen ku noqon karaa qof farshaxanka si fiican u yaqaana sidaada oo kale? Odaygii ayaa ku jawaabay, wiilkaygiiyow, waxa ugu muhiimsan waa inaad bilowdo farshaxanka. Ha ka baqin khaladaadka. Khaladaadku waa qayb ka mid ah waxbarashada iyo koritaanka shakhsiga. Wiilkii yaraa ayaa la yaabay jawaabtii ninkii odayga ahaa, wuxuuna weydiiyey, haddii aanan ku guulaysan sawirkayga ugu horeeyay, sideen ku dareemi karaa inaan sameynayo horumar? Odaygii ayaa ugu jawaabay, wiilkaygiiyow, mar kasta oo aad isku daydo inaad wax cusub samayso ama aad barato, waxaad ka baranaysaa waayo-aragnimo. Marka aad qalad samayso, qaladkaasi uusan ku niyadjabin, ee qaladkaas ka baro cashir oo mar kale isku day waxaad rabto inaad barato. Waa sida nolosha guusha loo gaaro. Wiilkii yaraa wuxuu maqlay taladii odaygii, wuxuuna go'aansaday inuu bilaabo sawirkiisii ugu horeeyay. Wuxuuna ogaaday in khaladaadka loo galo in cusub laga barto iyo inay ku horseedaan horumarka nolosha. Odaygii ayaa ugu dambeyntii ku yiri wiilkii yaraa, wiilkaygiiyow, muhiim ma ahan inaad wax waliba si fiican u samayso marka hore. Waxa ugu muhiimsan waa inaad isku daydo oo aad barato waxaad rabto. Guusha waxaa lagu gaaraa go'aan qaadasho iyo inaad wax ka baratid khaladaadkaaga. Ha ka baqin inaad khalad samayso, sababtoo ah khaladaadka waa qayb ka mid ah horumarka. Wiilkii yaraa wuxuu u mahadnaqay odaygii xikmadda badnaa, wuxuuna go'aansaday inuu ku dhaqmo talooyinkiisii oo uu bilowbo inuu isku dayo wax cusub inuu barto. Khaladaadka uu galayana inuusan ka niyad jabin oo uu ka barto casharo si uu u gaaro guul iyo nolol horumarsan.